السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنت وحنا وناكسن إذا باهدا وديال ميل كسته أو دافع الدنيا كجوكتان الكريم وهذا ميديا كسر وهذا وحيان دافع الدنيا يديكان دا يسمع تكتب يديك إني قد بدأ هو وين وركيجان كدا وندوتانا وحاكم ذا مهد صلاة ودحد حادنا يا أحمد مذوبه يا حسن الشيخ محمود سفروا كتجي كسمايو هي جبلان أو كعنت الدولة فترة الكون ويسوقشوا حسبيها معارض كيا كل مية سوماليلان أو بربر قرقة وصارن وصبيحية محمد كاهن ومحكمة إسلام قليا هي مدحوين عر حكومتي سو ديارسي حسبيجي بدليلها بنتلان كل ورقتي قادي إلى هاي العيد مرة بين التكر رغاغي عيدا أو كتاجن كالكعية بوصاصه هي سعيدني أو أمر وحسي عيد مدى دولة اليمن أو قرمة مدوبي وجود بسيد دعوة كلنا هشيس كسوماليلان هي إسرائيل hanjabaadii ugu cuslayd oo ay soo saartay iyo sirta qorshaha Israa'iil ee berbera oo banaanka la keenay wararkeena caalamka waxa aynu ku eegi doonaa Mareykanka oo lacag dhan 87 bilyan oo dollar u ansixistay si uu ugu diyaar garoobo weerar uu ku qaaday Iran nidaam marinka Hormuz oo la isku haysto iyo heshiiska Iran iyo Mareykanka oo burbur qarka u saaran kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu waaweyn warkeena iminkii haatanna kuwa iyo kuwa kale faahfaahintooda isku diyaariya isku soo noqdo wanaagsan daawadayaal aynu ku bilowna agaasimaha hay'adda sirdoonka Soomaaliya Mahad Salaad ayaa waxa uu bilaabay in uu dhaxdhaxaadiyo iskula soo dhaweeyo madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo muddooyinku u dambeeyay xiisadoodu ay cirka ku laalay xogaha soo ifbaxaya ayaa tilmaamaya in Mahad Salaad marka uu ka faraxasho heshiisiinta Xasan Sheekh Maxamuud iyo Qoorqoor inuu u gudbi doono sidii uu xal ugu raadin lahaa Axmed Madoobe iyo Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana ay iskula jaan qaadi lahaayeen Jubbaland iyo dawladda federaalka inta aan la gaarin doorashada Xasan Sheekh Maxamuud uu ka qabanayo dalka Soomaaliya ee qof iyo coda ee la filayo inay dhacdo bisha May ee sanadka 2027 xogaha soo ifbaxaya waxa ay tilmaamayaan in Mahad Salaad uu khadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe isla markaana uu ka dhaadhiciyay in xal wada uu ogolaado isla markaasina uu dhaxdhaxaadiyo heshiis laga gaaro khilaaf isaga iyo Xasan Sheekh Maxamuud u dhaxeeya sidoo kale Mahad Salaad ayaa waxa uu ka shaqeynayaa sidii Axmed Madoobe uu uga tagi lahaa xukunka maamulka Jubbaland isla markaasina uu ula shaqeyn lahaa dawladda federaalka ee Soomaaliya taasi oo ah ballanqaad iyo qodobo uu ka soo qaaday Xasan Sheekh Maxamuud oo ogolaaday in Axmed Madoobe uu si toos ah uga mid noqdo dawladda federaalka isla markaasina uu la shaqeeyo dhaxdhaxaadintan uu Mahad Salaad bilaabay ayaa wararku intaasi waxa ay ku darayaan in uu dhaqso u gudageli doono isla markaana la filayo in uu marka uu ka tago magaalada Dhuusamareeb uu jihaysto safar ku tago magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Jubbaland isagoo si gaar ah kulan ula qaadan doona Axmed Madoobe isla markaasina ka dhaadhicin doona waxa ay dawladda federaalka ay wadato iyo sidoo kale qaabka ugu dhow ee wada shaqeyn karaan Xasan Sheekh Maxamuud iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe xogo waxay intaasi ku darayaan in markaasi Mahad Salaad la filayo toddobaadka dambe in uu tago Kismaayo oo la kulmo Axmed Madoobe iyadoo markaasi ay arintu u dhowdahay in ay xal gaaraan Axmed Madoobe iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo 5 sanadood u dambeeyay khilaafkoodu cirka ku shareernaa isla markaasina xaaladdu ay ka sii dareysay dadaaladan waaweyn ee uu ku doonayo in Mahad Salaad uu ku soo afjaro khilaafka u dhaxeeya dawladda federaalka ah iyo maamul goboleedyada ayaa waxay noqotay dariiq cusub oo uu qaaday Xasan Sheekh Maxamuud isagoo markaasi garwaaqsaday in aanu marnaba ka adkaan doonin maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo markaasi madaxweynayaashoodu ay haystaan shacab iyo ciidan ku filan si weyn waxa loo eegayaa xaalka halkan uu ku dambeeyo iyo sidoo kale aqbalaadda uu sameeyo Axmed Madoobe iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud inuu ogolaado in uu Axmed Madoobe ka dhaafo in uu xukunka ka tuuro Axmed Madoobe ayaa doonaya in xukunka maamulka Jubbaland uu sii haysto isla markaasina uu ka sii taliyo halka uu madaxweynaha dawladda federaalka ila rabo in xukunka Jubbaland uu Axmed Madoobe dhaafo isla markaasina loo soo cogto madaxweyne cusub oo ka shaqeeya danaha Jubbaland aynu ku sii socono wararkeena dhanka Soomaaliland aynu jaleecno xisbiga weyn ee mucaaradka ah ee kulmiye oo muddo laba xileed ahna soo maamulayay Soomaaliland
ayaa waqtigan waxa uu muuqdaa mid burbur qarka u saaran kadib khilaaf weyn oo hadheeya dhinacyada. xogu waxay tilmaamayaan in xisbiga mucaaradka ah ee kulmiye uu markaasi khilaafkii ugu weynaa soo kala dhexgalay hogaankooda, taasi oo markaasi sababtay in ay laba garab u kala jabaan, kuwaasi oo ah garab uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo garab uu hogaaminayo gudoomiyaha xisbiga ee Maxamed Kaahin Axmed, horena uu soo noqday wasiirkii arrimaha gudaha ee Somaliland. burburkan iyo khilaafkan weyn ee soo kala dhexgalay xisbiga mucaaradka ah ee kulmiye ayaa si weyn waxa uu saameeyay siyaasadii gudaha ee xisbigaasi uu ku jawaajahayay, iyadoona ay xisbigaasi ka dareereen dhammaanba siyaasiyiintii iyo madaxdii waaweyneed ee ka tirsanayd, kuwaas oo muddooyinka u dambeeyay ku biirayay xisbiga wadani iyo sidoo kale xisbiga ka. dhanka kale madaxweynihii hore ee Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa xogo waxay tilmaamayaan in maxkamadda sare uu gudbiyay dacwad ka dhana gudoomiyaha xisbiga kulmiye Maxamed Kaahin Axmed, taas oo uu ku doonayo in markaasi hogaankii xisbiga uu ku soo laabto si uu mar kale tartan halkaasi uga dhex raadiyo. wararku waxa ay tilmaamayaan in maxkamadayntan Muuse Biixi ku qaaday Maxamed Kaahin ay xaaladii xisbiga cirka ku sii shareertay, isla markaasina la filayo in dhowaan maxkamaddu ay qaado garmaqalkooda. waa markii ugu horeysay ee madaxweyne hore ee Somaliland uu dacwad ka gudbiyo wasiirkiisa arrimaha gudaha ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee kulmiye, oo ah xisbiga ugu tunka weyn ee dhanka da'da xisbiyada siyaasadda ee Somaliland. khilaafkan weyn ayaan la garanaynin halka uu saldhigan doono iyo sidoo kale go'aanka ay maxkamaddu arrintaasi ka soo saari doonto. dhanka kale se xukuumadda madaxweyne Ciro ayaa waxa ay diyaarisay qorshe weyn oo ay ku rabto in markaasi ay ku keento xisbigii bedeli lahaa xisbiga kulmiye haddii uu ka baxo saaxadda siyaasadda, waxaana xogo tilmaamayaan inay si weyn dabada uga riixayso urur siyaasadeedka Hilaac oo uu hogaamiyo Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo ka soo jeeda gobolka Hawdal, iyadoona rabta xukuumaddu in markaasi xisbiga Hilaac uu noqdo xisbiga bedela xisbiga mucaaradka ee kulmiye. siyaasadda si weyn waxay u faaqidaysaa in xisbiga kulmiye uu burqarka u saaran yahay, lamana garanayo halka ay arrintu saldhigan doonto. aynu ku sii soconno daawadayaal, wararkeena dowlad goboleedka Puntland ayaa si xooga waxa ay kula wareegtay hubkii iyo gaadiidkii ay lahaayeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee la geeyay deegaanada Puntland, kuwaasi oo uu hogaaminayay General Takar oo ka mid ah saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, dhawaana loo soo magacaabay taliyaha qaybta 54aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ee deegaanada Puntland. xogaha soo ifbaxaya ayaa tilmaamaya in amar ka soo baxay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni laguna fulinayay go'aamadii maalintii shalay ee ka soo baxay wasaaradda amniga ee Puntland ayaa waxa lagu sheegay in hubkii ugu badnaa iyo gaadiidkii dagaalka ay dowlad goboleedka Puntland kula wareegtay, kuwaas oo ku xareysnaa xeryo ku yaala magaalooyinka Gaalkacyo iyo Boosaaso. xogo waxay tilmaamayaan in hubkan iyo gaadiidkan ay la wareegtay dowlad goboleedka Puntland ay saameyn weyn ku yeelan doonto dadaaladii uu waday General Jaamac Takar oo ka ah taliyaha qaybta 54aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, iyadoona sidoo kale ciidamo gaar ah dowlad goboleedka Puntland u samaysay la dagaalanka ciidamo kasta oo aan ahayn kuwa Puntland oo dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wada deegaanadeeda. dowlad goboleedka Puntland ayaa hubkan ay la wareegtay waxa ay yihiin kuwa culus ee la saaro gaadiidka iyo qoryaha fudud, halka sidoo kale gaadiidkuna ay yihiin kuwa dagaalka, kuwaasi oo markaasi dowladda federaalka ee Soomaaliya dhawaan ay keentay deegaanada Puntland, isla markaana la doonayay in lagu hubeeyo ciidamada dowladda federaalka ee ku sugnaan doona deegaanada Puntland, isla markaasina uu Xasan Sheekh Maxamuud ugu talagalay in ay la dagaalamaan dowlad goboleedka Puntland iyo ciidamada uu ka amar qaadanayo Siciid Deni. go'aankan iyo ay hubka Puntland kula wareegtay ayaa ah mid markaasi si xumeyn kara xiisadda u dhaxaysa dowlad goboleedka Puntland iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya, iyadoona khilaafka u dhaxeeya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Siciid Deni uu marayo halkii ugu sareysay, isla markaana labada dhinacba ay Puntland ka wada dhaqdhaqaaqyo ay doonayaan in ay toodu ku hirgasho. amarkan iyo go'aankan ay dowlad goboleedka Puntland kula wareegtay hubkii iyo gaadiidka ugu badnaa ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ay leedahay ayaa ku soo aadiyay kadib markii maalintii shalay ahayd ay wasaaradda amniga iyo guddida amniga qaranka ee Puntland ay soo saareen go'aamo ay ku sheegeen in aan haba yaraatee la ogolaan doonin ciidamo aan ahayn kuwa Puntland in ay joogaan deegaanadeeda ayna wax dhaqdhaqaaqi ah ka sameeyaan.
tallaabadaasi oo dhabar jab weyn ku ah qorshayaashii uu dejiyey Generaal Takar oo doonayay in xukunka Siciid Cabdullaahi Deni laga qaado isagoona Xasan Sheekh Maxamuud u soo ballan qaaday in dagaalka ugu adag uu la geli doono madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Siciid Cabdullaahi Deni. dowlad goboleedka Puntland ayaa sidoo kale waxa ay kaga dhabaysay oo ay fulisay go'aankeedii ay gebi ahaanba mas'uuliyiinta xilalka ka haya dowladda federaalka ee Soomaaliya ay kaga mamnuucday in ay yimaadaan deegaanada Puntland waxaana jira ciidamo gaar ah oo uu Siciid Deni u sameeyay la dagaalanka ciidamada dowladda federaalka ah ee uu Generaal Takar hogaaminayo iyo siyaasi kasta oo ka soo jeeda Puntland oo markaasi wada qorshe ka dhan ah Puntland. Siciid Cabdullaahi Deni ayaa doonayay in xukunka dowlad goboleedkaasi uu sii xajisto isla markaasina uu sii maamulo maamulkaasi halka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isna uu rabo in xukunka laga tuuro Siciid Cabdullaahi Deni isla markaasina uu laba jibaaray dadaalada arrintaasi lagaga hortagayo si weyn waxaa loo eegayaa xaalku halka uu ku dambeeyo iyo cidda ay guushu raacdo. aynu ku sii soconno wararkeena daawadayaal dowladda Yemen ayaa qaramada midoobay waxa ay u gudbisay dacwad ka dhan ah heshiiska ay wada galeen Somaliland iyo Israel iyadoo ku tilmaamtay in uu yahay heshiis halis ku ah gobolka iyo sidoo kale islaamka. dowladda Yemen ayaa waxa ay sidoo kale soo saartay digniintii ugu adkeyd oo ku saabsan isla markaasina ay ku sheegtay in Somaliland iyo Israel heshiiskoodu uu yahay mid khatar ku ah gobolka loona baahan yahay in lagaga hortago. xukuumadda Sanca waxa ay sidoo kale madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro ay ku eedeysay khiyaano qaran iyo inuu ka shaqeynayo sidii magaalooyinka istaraatiijiga ah ee Hargeysa iyo Berbera loogu bedeli lahaa bay jiri xarumo saameyn iyo howlgallo u adeegaya Israel iyadoona markaasi tilmaamtay in khatarahani ay si weyn u saameynayaan gobolka isla markaasina amniga guud ay dhibaato ugu yihiin. wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo qurba joogta ee Yemen Cabdulwaaxid Aburaas ayaa wareysi u siiyay wakaaladda wararka ee Saba oo ka soo baxda Yemen waxa uu ku sheegay in markaasi heshiiskani uu yahay mid halis ku ah amniga qaranka gobolka oo dhan isla markaana gobolka uu horseedi doono isku dhacyo ba'an iyo khilaafaad hor leh. Aburaas waxa uu carabka ku adkeeyay in amniga Yemen iyo guud ahaanba gobolku uu yahay xariiq cas oo lama taabtaan ah isagoona sheegay in ay Yemen leedahay rabitaan iyo awood ay ku difaacdo amnigeeda istaraatiijiga ah. waxa uu sidoo kale wasiirkani tilmaamay in Israel ay doonayso in ay soo caga dhigato oo ay soo degto albaabka badda cas iyadoona markaasi doonaysa in ay danaheeda ka fishato waa sidoo hadalka u dhigay. waxa uu ugu baaqay dhammaanba dhinacyada Soomaalida iyo dalalka gobolkaba in ay feejignaan dheeraada ay sameeyaan isla markaana ay ka digtoonaadaan tallaabo kasta oo ay qaadayaan Israel iyo Somaliland waa sidoo hadalka u dhigay. isla dhanka kale dowladda Yemen ayaa waxa ay qaramada midoobay u gudbisay dacwad ka dhan ah Somaliland iyo Israel heshiiskeeda iyadoona arrintaasi loo mariyay taliye ku-xigeenka ciidanka qalabka sida ee Yemen Sareeye Guuto Cali Xaamud Al-Mushaki oo markaasi ah wakiilka qaramada midoobay jooga. intii lagu jiray kulan uu la yeeshay taliyaha militariga ergiga qaramada midoobay u qaabilsan Yemen Al-Mushaki waxa uu sheegay in joogitaanka Israel ee Somaliland uu khatar toos ah oo amniga ku wajahan uu yahay isla markaana uu horseedi karo falal dambiyeedyo iyo isku dhacyo dhexmara dalalkaasi. waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in feejignaan dheeraada arrintaasi laga yeesho isla markaasina la qaado tallaabo kasta oo lagaga hortagayo in Israel ay soo caga dhigato badda cas waa sidoo halka uu tilmaamay. hanjabaadan culus ee ka soo baxday dowladda Yemen ayaa waxa ay ku soo aadaysaa xilli maanta madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro oo ku soo guryo noqday magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland kadib markii uu soo gabagabeeyay safarkiisii uu ku tagay dalka Israel. ayaa 26 bishii December waxa ay Somaliland u aqoonsatay dal madax bannaan iyadoona markaasi sidoo kale heshiisyo waaweyn oo amniguna qayb ka yahay la gashay Somaliland sidoo kalena Israel ayaa dhawaan Hargeysa waxa ay ka furan doontaa safaaradeeda ay ku yeelanayso iyadoona Somaliland ay safaaradeedii ka furatay dhawaan magaalada Qudus oo madaxweynaha Somaliland xariga ka soo jaray. gabagabadii wararkeena ayaynu soo gaadhnay Mareykanka ayaa lacag dhan 87 bilyan oo dollar waxa uu ansixiyay dagaal uu mar kale ku qaado Iran xilli markaasi uu dhaqangal yahay heshiiska ay wada galeen Mareykanka iyo Iran.
aqalka cad ee Mareykanka ayaa waxa uu ka codsaday xubnaha Koongareeska in ay ansixiyaan kharash dhan 87.6 bilyan oo dollar. inta badan lacagahaasi waxa lagu sheegay inay tahay baahiyo degdeg ah oo la xiriira dagaalka uu Mareykanku kula jiro dalka Iran. tanina waxay timi maalin kadib markii Koongareesku meel mariyay qaraar cambaareynaya dagaalkaasi. sida aqalka cad uu sheegay qaybta ugu badan ee lacagtaasi oo gaadhaysay 67 bilyan oo dollar waxa loo qoondeeyay wasaaradda difaaca ee Mareykanka iyo sidoo kale in la diyaariyo weerar oo culus oo Iran lagu qaado taasi oo lagu doonayo in lagu bartilmaameedsado xarumaha nukliyeerka ee Iran. si kastaba ha ahaatee codsigan ayaa waajahaya caqabado ka jira Koongareeska iyadoona Iran arrintaasi ay kala kulmayso tallaabo weyn oo diyaar garow sidoo kalena Iran ayaa waxa ay sheegtay in wax kasta oo Mareykanku sameeyo ay diyaar u tahay inay ka jawaabto sidoo kalena dhaqdhaqaaqyo kasta oo ay sameeyaan aanay wax dhibaato ah ku yeelan doonin. taas ayaa wararkeena ku soo gabagabeynayna inta la kulmayna wararka xiga waxaynu ku kulmaynaa sidaas iyo nabadgelyo.